jasiiradda North Sentinel Island dal ahaan jasiiraddani waxay ka tirsan tahay dalka Hindiya waxay saaran tahay badweynta Hindiya kooxda jasiiradaha Andaman iyo Nicobar waxyaabaha ugu la yaabka badan ee ka jira waxaa ka mid ah kow waa jasiirad dadka ku nool aysan la xiriirin dunida inteeda kale oo kumanaan sano ayay go'doon ku jiraan dadka degan jasiiraddan waa qabiilka Sentinelese oo ah qabiil diiday dhammaan noocyada xiriirka dibadda cid kasta oo isku dayda inay u tagto waxay ku weeraraan fallaadho iyo waran sida daraadeed ayay dawladda Hindiya waxay ka mamnuucday gabi ahaanba in la booqdo laba dadka Sentinelese qabiilka dunida ka qarsoon waa qabiilka ugu go'doonsan dunida lama yaqaan luqadooda diintooda ama xitaa tiradooda saxda ah waxay wali u nool yihiin sida dadkii dhagxaanta mala koronto dhar ama tiknoolajiyad ma aqbalaan deeqo raashin dawo ama xiriir caalami ah markasta oo la damco in gargaar loo fidiyana way iska celiyaan saddex sababta loo mamnuucay dawladda Hindiya waxay mamnuucday in cid tagto si aan loogu fidin xanuunada difaacooda jirku ku liito sidoo kale waa si loo ilaaliyo xorriyadooda iyo noloshooda dabiiciga ah 2018 minin missionary ah oo Mareykan ahaa ayaa isku dayay inuu diinta gaarsiiyo balse waa lagu dilay markiiba afar xaqiiqooyinka la yaabka leh ee ka jira sawiraha wada sare laga qaaday ayaa muujiyay iyaga oo cadhaysan marka diyaarad u soo dhawaato waa mid ka mid ah meelaha dunida ku harsan oo aan la geyn karin internet TikTok TV ama xitaa khariirado sax ah lama oga waxay aaminsan yihiin waxa ay cunaan ee dhabta ah ama sida ay u abaabulan yihiin North Sentinel Island waa jasiirad aan la geli karin aan la baran karin oo la yaabkeedu yahay in ay si buuxda uga fogaatay nolosha casriga ah waxa lagu tilmaamaa jasiiradda ugu qarsoodiga badan ee dunida waa mid laga cabsado